هوري هالكو اي دي كلا كسو هاد سو شرحني اي دي waxay leedahay mutually exclusive event ee jira marka kama waxa laga wadaa erigan waa mutually exclusive event maxaa laga wadaa dhacdooyin aan lahayn wadaag yes dhacdooyinka qaar waxay leeyihiin wadaag leeyihiin qaarna ma lahan tusaale ahaan dhacdada koowaad A iyo dhacdada labaad B markay saan tahay waxaan dhihi karnaa labada dhacdo kan dhacdo A waaye kanna B waaye marna waa ii sheeg waa saan oo kale kan waa A مثلا كان و B A iyo B markaan fiirino labada graph kala duwan yihiin kan maxay leeyihiin wadaag maxay wadaagaan xaggaas kan wadaagooda ma laha marka see loo qoraa A intersection B aan gaarno kan markii loo fiiriyo waa 0 waa 5 ana ma jiro laakiin in this case wuu jiraa tusaale ahaan fiiri تصالحان فيره مثلا و1 و2 و6 و8 و9 و4 و7 و3 maybe 1 4 2 6 8 9 10 12 15 okay لابد ما كان فيره لما كان فيره waxaa ii muuqata A iyo B markaa fiirino wax ma wadaagaan ma leeyihin share waa maya waxaan dhihi karnaa eventyada A ku jira haddii intersectionkooda waxay wadaagaan eventyada ku jira B waa 5 minus waa empty macnaa waa 0 ma jira waa laakiin markaan ka hadlaa fiiri eventyada A waxay la wadaagaan eventyada B markaan fiiriyo ma jiraan labada xabo waxay wadaagaan 8 iyo 6 so marka my point is in this case marka fiirinahay waxaa laga wadaa mutually exclusive eventyadan commonkooda way kala baxsan yihiin common ma jiro si kale u sheego مثلا fiiri ereygan mutually horta waa wadaag exclusive كبحسن لغة هم كله فيها كبحسن وحاجة exclusive وحاجة inclusive إن أنا كجروا X هبنان كوسما أوكي فاين مركي لا سوق أو مركي في أرياس كوسما بنا قرت event أنا عذوه محل مركا نعذوينك ها common code ها وكلا بحسن هاي أم كعلي معنا dhacdooyin kan A iyo B common code uu kala baxsan yahay maxaa ku xaqada no common in this case waxa ka wadnaa labada event labada dhacdo wax ay wadaagaan ma lahan in this case kan kale waxa uu naqaan waxay waa mutually exclusive event waa dhacdooyin oo kala dhacdooyin aan wadaag lahayn mutual wadaag waa dhacdooyinkaas wadaagooda وكان بحثيا معناها كودنا وذاك ملان very simple way okay لكن in this case محايا له إنه جرى common مركي لو فيري A B دي كان لو فيري كم كيف كان common كله zero مجرى لكن هل كان common أجرى مرة خاص كإلى تدخل حيلين event A event B common كله zero و number كان أنا هل كان مقاد جوجي zero مقرن ما قري fire قرا أما ساسا قرا empty set ururkaas waxa qoran fine waa sax waa dhigi kartaa abina tan laba bracket oo ibra qof wuxuu dareemayaa in common kala wada xab wadaagooda eber yahay ama ya fine la qofkii qoro A iyo B wadaagooda waa 0 is a number waxa ka wadaa 0 wadaagan so bili marka iska ilaali 0 dhaga waxay tahay 5 waxa laga wadaa ma jiro laakiin this case waxay wadaagan 8 iyo 6 wadaagan waxaan dhihi karnaa common code waxay waa 8 iyo 6 marka statistic probability kalimkaas soo qoraa
markaan sheegay qaab yani noocan markaan sheegay maxay waxaa jira terminology la isticmaalo maxaa loo isticmaalaa meesha uu kan ka ahaa yani commonkooda uu kala baxsan yahay waxaan ka hormarinaa kaliya nots haddaan not ka hormariyo jaa waxaa dareemi maxay inuu common jiro because waxaa isticmaali doonaa negative negative positive way positive iyo positive-na positive way negative iyo positive-na negative way negative positive negative way macnaha xataa Englishka uu saameynaya laba diidmo ogolaasho way laba ogolaasho way diidmi ogolaasho diidmo way ogolaasho diidmana diidmo way tusaale soo qaad مثلا waxaana مثلا fiir inaan baxo waan diiday diidmo way okay مثلا fiir aan fududeeyo مثلا waxaan rabaa exam waxaan exam inaa galo positive mo inaa ogolaado exam inaa galo ogolaado waan diiday maxaa waay imtixaan ma galaa diidmo waay maxaa isticmaalnay positive iyo negative negative waay okay imtixaan inaa galo ogolaasho waay waa ogolaaday maxaa soo baxay ogolaasho isi imtixaan inaa galo hee waa ogolaaday waay waa maxay laakiin imtixaan inaa galo waa diiday waay maxaa isticmaalnay positive ogolaasho waay ogolaasho iyo diidmo waay imtixaan inaa galo hee waa ogolaaday maxaa soo baxday inaa ogolaatay positive waay imtixaan inaa galo hee waa diiday maxaa waay imtixaan waa diiday negative waay okay waxaan rabnaa laba negative laba diidmo la isticmaalo waxaan dhahay imtixaan inaa gelin diidmo waay imtixaan inaa gelin hee anigu waa diiday maxaa ka wadaa imtixaan galaa imtixaan inaa gelin waan diiday maxaa soo baxay waa galaa maxaa isticmaalnay diidmo ogolaasho waay maxaan sheegnay diidmo ogolaasho waay ogolaasho waay diidmo may ogolaasho diidmo waay maxay dhiman diidmo ogolaasho cagsigan imtixaan inaa gelin hee waa ogolaaday maxaa ka wadaa imtixaan ma galaa diidmo waay marka tii marka isticmaal marka ereygan exclusive-ka ereygan diidmo waay maxaa ka wadaa marka eventiyada commonkooda way kala baxsan yihiin maxaan ku daray marka notkaas diidmo waay kana diidmo waay kadibna ogolaasho waay oo maxay marka kow hadda kan ka maarmo maxay ahayd dhacdooyinka wadaagooda way kala baxsan yihiin wadaag ma jiro waay laakiin maxaa isticmaalnay notkan diidmo waay kana diidmo waay maxay muujinaysaa inuu wadaag jiro marka aan shara marka yani ma ahan not maxaa diidmo waay dhacdooyinkan ma ahan ku wadaagooda kala baxsan yahay waa isku jiraan waay that's waa negative positive waay aan ku celiyo dhacdooyinkan wadaagooda ma ahan ku kala baxsan notkaas diidmo waay ma ahan kuwa kala baxsan dhacdooyinkaas commonkooda ma ahan kuwa kala baxsan commonka dhacdooyinkaas waxaa ka wada waxay leeyihiin common marka waxaan dhihi karnaa markaan dhaho not mutually exclusive event waxaa laga wadaa common ay leeyihiin haddaa kan ka reebo laakiin waxaa laga wadaa mutually commonkooda exclusive waay wax ma wadaagaan marka haddaan not raacsiyana common ay leeyihiin haddaan ka reebana ma laha common waxaan dareemayaa in la fahmay ereygaas waxaan ka wadnaa waa mutually exclusive event waxaa ku soo haray independently marka dhacdooyinka qaar waxay lahaan doonaan independently marka waxaa laga wadaa dhacdooyinka qaar isku xiran yihiin qaarna isku xirna tusaale marka soo qaato haddii event A oo event B saameynaya maxay waxaan dhihi karnaa dhacdooyinkaas dependent waa laakiin hadduu saameynaynin independent ereyga independent waxaa noqona maxay madax bannaan waa xor okay marka tusaale marka event A iyo B soo qaato boxkan waxaa ku jiro nambaro ayaa ku jiro okay tusaale ahaan ama
سكر أو شيء لكن وحايستا لا دو وحايستا يشيلين صالحان سيمبل إكزامبل صوت هشرحها أيدي ذا independent أوكي لا دو أنا توري لا دو هو كاني نمبر 4 فايل لا دو توري هايستا شيلين marka ma dhigi kara isku xiran yihiin maadaama la dhuu aad tuuray oo foori keenay afartan darteed ka waxa keen kara madax dhigi kara answer sameeyo isku xirna la dhuu aad tuuray afar keenay ma gacanta ku haysta shilin ma dhigi karna maadaama la dhuu aad tuuray afar keenay dartiisa iyo shilinkan waxay u keenay madax ka shilinka waa coin ma karo head or tail marka ma dhigi karna because of 4 la dhuu keenay darteeda ay maxay head kan ay shilinkana ku keen kara head in this case hadii karna waa independent events isku xirna la doon xis goono keen doona kana goono isku xirna ka waxaan qana waa independent events kaas waxaan ugu dambeeyay cashiga maanta midkaan loo yaqaano collectively exhaustive waxa laga wadaa eventida aan tijaabinayno hay hal mar ma dhici karto laba shay wacda aqli ma tahay in la dhowna tuuro أنا لا دوان توري يعني هو كده محوي كأني number 5 6 معقولة مايا محصور قال only one face ما يجي يعرف عندي جن لا دو مكويه لجن حاول لا دو مكويه لجن حكونا لا دو إنه نخو جنجر لا دو يجي هنا خاص لعل in this case لا دو هنا خوي جنجر مثل ما شبحات وسرمي أنت كثيرني 5 واي أنت نحكي واي كما حاولنا كنا لجن كعلي جرني كده مركو لدوس أو 6 صورة فيس كيس هاي ما هي ما كر هاي one of this face مركو ساي هاي ما هي ما كر أبوه 6 أبوه 5 أبوه 4 طبعا عندي كنا ريحان collectively exhaustive على كذا هل مودع كران لو شيء تسأله امتحانك شمول امتحان ما كي ما كر suppose بديك امتحانك قلي امتحان كينا نتيجة أنا قد جاوبت يسا باسي فيل نو امتحانك اسمه وفيل أم وباس like one time هاي بدعي كران event here حكودنا outcome كسبح دونه لو حبوا it can be only one كهرجنا اللي فهمي عشان كده ما أنت ما سنتين جزاكم الله خير وخيرت خير أنتوا بهن conceptual iyo صار بحيو مركب فضلا إن شاء الله مركب داوني زي عشان كان مسكحة سوجي أضو قمن فوكس كان دياسين فضلا نجيسو وإذا كان مقولين يوتيوب كي مركب بار إن شاء الله حقوق صار thank you so much ما سنتين